munaasibadani ayaa ahayd mid maamulka iyo macallimiinta iyo sidoo kale ardayda jaamacadda Alfa gaar ahaan kulliyadda ShayBaadhka ay ku soo dhaweynayeen hormuudka cusub ee kulliyadda ShayBaadhka ee jaamacadda Alfa waxaana munaasibadaasi goobjoog ahaa gudoomiyaha jaamacadda Alfa ee gobolada Saraar Togdheer Daadmareer iyo sidoo kale Sheekh Cabdiqani Ibrahim Xasan iyo sidoo kale macallimiin iyo marti sharaf kale ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhiimamka kulliyadaha jaamacadda Alfa maamulaha dugsiga Sheekh Ibrahim macallimiin arday iyo marti sharaf kale iyagoona dhamaantoodba si isku mid ah ugu soo dhaweeyay jaamacadda Dhiinka cusub ee kulliyadda ShayBaadhka ee jaamacadda Alfa Cabdixakiin Maxamed Xasan soo dhawow madaxda jaamacadda Alfa ku soo dhawow teamka dhiimanka oo markii hore waxa ku joognay somehow saddex dhiin imakana Cabdixakiinna waa soo dhaweynayna marka seniority never dies soo dhaweynayaa waxaan leeyahay de waxyaabo badan oo aanu kaaga soo horeynay baa jira managing a human being is not a simple task bilaadan in la maareeyo la maamulaa runtii wax yar oo fudud ma aha waayo caqli baad la macaamilaysaa waa u duceynayaa Cabdixakiin waxaan leeyahay Allah ku fududeeyo xilka lagu magacaabay waana kugu tahniyadeynayaa hambalyaan ku leeyahay jaamacadda Alfa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaa halkan caawa iga muuqda in jaamacaddu ay tahay bulsho xaqiiqdii isku tiirsan in badan baa iga muuqata Mr. Cabdixakiin hore oo soo dhaweynay imkan oo soo dhaweynaa waxaan leenahay ku soo dhaw jaamacadda Alfa shaqaalaha oo ku soo dhaweynayaan si fiican oo kula shaqeyn doona insha Allah waan kugu hambalyeynaa xilka aan hore jaamacadda laab hore loogu magacaabay adiga lagu magacaabay inaad ka soo bixi doonto insha Allah waan rajeynaynaa waan ku rajooynahay waxaan si gaar ah ugu soo dhaweynayaa guud ahaan jaamacadda iyo kulliyadda caafimaadka ahna macalinkaygii waxaan leeyahay macallin soo dhawow jaamacadda noo hastay marka dhameysina fakar labaad dalalka ka cisho baan isleeyahay doon ka dhigo taa waxa lagu cishanayaa sababta aan u sameeynaya oo marka aragtid maamulkii iyo macallimiinta iyo soo dhaweynaya oo shaygaagii shayba kuugu daraya waa inaad wasi jeclaanaysaa waliba jaamacadeennani jaamacadaha intooda u badan way ka duwan tahay waa jaamacad waxaad u baahatid iyo shaygaad u baahatidba lagu siinayo markaa gudoomiye Cabdiqani aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kulley Cabdixakiin waxa lagu soo xushay waa activity uu ka dheer yahay ama uu la dheer yahay macallimiinta intooda kale saadaradeed waxa loo doortay inuu noqdo hormuudka kulliyadda ShayBaadhka waa kugu soo dhaweynaa jaamacadda inagoo isku campus noqon doona leeyahay macallin ardaydaadun baa ka soo horeysa milyan jeer waxaan ku leenahay hambaliyo soo dhawowna waan ku leenahay anagu baa meesha kugu sii sugayna sidii aan macallin markii aan ardayda dugsigaaga ahayn aad wax noo dhigaysay aad noogu heelanayd anaguna maanta kugu heelana hadaan nahay ardayda kulliyadda medical lab waxaan aad u soo isagana aan aad ugu mahad celinayaa gudoomiyaha jaamacadda ahna garwadeenka aqoonteeda waxaan ku leenahay Cabdiqani aad baad u mahadsantahay waxa tahay shakhsi ilaahay ku manaystay dadnimo soo dhaweyn karti iyo dadaal fiicanba dhankiisana Cabdixakiin Maxamed Xasan Dhiinka cusub ee kulliyadda ShayBaadhka ee jaamacadda Alfa ayaa uga mahadnaqay maamulka iyo macallimiinta iyo sidoo kale ardayda jaamacadda sida ay ugu soo dhaweeyeen jaamacadda kulley mas'uuliyadda qof waliba uu garan karaa culayska ay leedahay mas'uuliyaddu ma aha wax loo sacbatumo ama lagu farxo runtii mas'uuliyadduna sideedaba waa ammaano kulley waxaan isu noqon doonaa maamul iyo ardaygiisii macallin iyo ardaygiisii inta in ka badanna runtii waynu iskaga sii dhawaan doonaa insha Allah bismillaah kariim aad iyo aad baan idinka gudoomay gudoon fiican soo dhaweynta quruxda badan ee aad sameyseen sida aad sharafteen madaxda jaamacadda iyo ardayda kulliyadda ShayBaadhka intaba gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alfa Burco Professor Cabdiqani Ibrahim Xasan waxaana uu ka xog waramay muhiimadda ay jaamacaddu ugu fadhido kulliyadda ShayBaadhku isagoona ku soo dhaweeyay jaamacadda Dhiinka cusub ee kulliyaddaasi jaamacad ahaana kadib markii aan aragnay aqoontiisa muddo kooban oo jaamacadda jooga 2 semester aan u garanay inuu noqdo hormuudka kulliyadda jaamacaddu runtii si balaaranaysa oo hal dhiin lahayd qaybta caafimaadka ay ka fursan weyday runtii in maamul daadajin ama decentralization
la sameeyo runtii ka maamul ahaan jaamacad ahaan waan la garab taaganahay cabdixakiin runtii wax kastoo runtii uu nooga baahdo waxaan rajaynayaa in kuliyadda laabku ay kor u sii kaci doonto tira ahaan iyo tay ahaan runtii si gaar aan ugu mahadnaqayaa runtii maamul cabdiraxmaan oo ardayda ugu badan ee runtii imika halkan fadhida ay yihiin ardayda runtii dugsiga ka soo baxay jaamacadda iyo dugsiguna runtii si gaara ayay isugu xidhan yihiin insha allah haddii la ka dhigo maamul ahaan macallimiin ahaan iyo arday ahaan runtii iskuulkaana waxaa ka soo baxa arday runtii leaderisa ama hogaamiyaal ah oo ka muuqda runtii jaamacadda inta ay joogaan waan uga mahad celinayaa cabdiraxmaan juhdiga iyo dadaalka dheer ee runtii uu geliyey iskuulka intaa tirada leega baaxad ahaan aada u ballaadhan iyo haddana siday ardaydu aqoon ahaan iyo isku xidhayin intaba gabagabadiina qaar ka mid a ardayda kuliyadda shaybaadhka ee jaamacadda alfa ayaa shahaado sharafyo kala duwan ku maamuusay qaar ka mid ah macalimiinta kuliyadaasi iyo sidoo kale dhiinka cusub ee kuliyadda shaybaadhka cabdilaahi maxamuud muuse xudayfi wararka telefishinka Eryal magaalada Burco. maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaadhkaaga Somtel? haa, internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa. ma og tahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'idi karto? ma og tahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay? waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave-yo, TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo baanka dahabshiil ah, dalxiis aad ku degto hoteelada Damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guulaysan kartaa. waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guulaystayaasha. si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111.